Soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan Soomaaliyana ma jirto laakiin dhalinyarada iyo shacabka baa waqti laga luminaya waxay maraysaa maanta 30 sano maraysaa reer Soomaaliland inay meesha ku badan yihiin waxay la tahay dadkii waa saddex galay marka hadda kuwa badan waa sugeynaa inay yimaadaan insha Allah waa maasan tahay hooda su'aasha ay weydiisay waa su'aal wanaagsan annaga miyaa ka mas'uul ah in la baajiyo kulamadii aan u ballanay waxaan oran karaa labada dhinacba annaga qaybteena waa qiraya waa ka gaabinay sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasaa qayb ka ah inaan ka gaabino laakiin mid ogaada hawshaan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay 2 sano iyo bar ka hor iyo bilaabatay hawshaan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay anigu waa iga go'anta runtii waa iga go'an tahay ma aha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay waa masiir Soomaali weeye waa mustaqbal Soomaali weeye waa caruurteena mustaqbalkooda wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye marka waa wax taagan qof alla qofkii mas'uul ah oo damiir Soomaali leh waxa weeye inuu u istaago wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay tahay muqaddas maxaa yeelay Soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan Soomaaliyana ma jirto laakiin dhalinyarada iyo shacabka baa waqti laga luminaya waxay maraysaa maanta 30 sano maraysaa Soomaaliland madaxdeedana wax walba waa sameeyeen meel walbana waa u galeen sidee ku heli lahaayeen aqoonsi macnaheedu waxay tahay dawlad Afrika ka tirsan oo la kala goonayo ma jirto maxaa yeelay Afrika oo dhan yaa fragile ah haddii la kala gooyo Afrika oo dhan baa kala tagaysa waxay leeyihiin wadan walba grievance iyo dib baa ka jira dib qabiil baa ka jira dib diin ayaa ka jira dib juqraafi ayaa ka jira waxa soo dhan anagu ma qabno hadaan nahay Soomaali ninka Soomaaliyeed oo raas Kamboni jooga hadduu saylac tago waa wadalkiisii way cid ka garanaysa ma jirto saas darteed waa ku khasbannahay inaan midowno inaan soo imaano waqti waa naga lumay waa dhab inta ay maqan yihiin annaga waxba naga maqan wax muhiim ah yaa naga maqan iyaguna ma istaagi karaan annaguna ma istaagi karno xaqiiqatan waxa kala hayo waxay tahay madaxda iyo siyaasiyiinta kala hayo ummadda shacabku waa dad waala ah wax dhibaato ah oo ka dhaxeeya malaha waxa loo baahan yahay madaxdu inay isu yimaadaan iyagoo u daneynaya mustaqbalka caruurtooda iyagoo u daneynaya aniga qaybtayda wax walba waa isku dayay inaan sameeyo in aan waalahen walkay musabixi inaan la xiriiro oo aan la xaalo oo aan la fariisto waxaan isku aragnay aan isku aragnay waxaana dhex galay Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed meel fiican yaan wax isla soo gaarsiinay laakiin ma shaqaynin haddana shirkii hadda ugu dambeeyay aan ku qabanay Djibouti wuxuu ahaa shir anigu aan ka shaqeeyo ahaa shir aniga aan ka shaqeeyay oo aan involve gareeyay oo aan ku qanciyay dawladaha Mareykanka European Unionka Ethiopia iyo walaalkeen Ismaaciil aan ku qanciyay u ahaa ma ahayn mid cid ka nooga yimid ma ahayn mid anigu aan bilaabo ahaa in shirka loo leexiyo loo waciyo Djibouti wuxuuna ahaa bilow wanaagsan inkastoo uusan sii socon aan doorasho ku jirno laakiin waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican oo aan ka ambaqaadi karno insha Allah mustaqbalka haduu Ilaahay yiraahdo